fadhida ee uma baahna kala qoqob iyo nidaam ku dhisan urur iyo kooxaysi. xildhibaanada sharciga ah ee galmudug ee ah 89 ayaa intooda badan iskugu tegay xarunta baarlamanka ee Cadaado iyagoo ka jawaabaya gacan dhaaf lagu sameeyay howlahooda dastuuriga ah iyo cadaalad darro baahsan oo lagu sameeyay fulinta heshiiskii Djibouti. sidaa darteed wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saartay warqad tixraaceedu yahay WAGF iyo D isbaare X W003 eber isbaaro 18 ay ku dalabtay in la joojiyo dhammaan howlaha ku saabsan heshiiskii lagu soo gaaray dalka Djibouti iyo in xildhibaanada jooga Cadaado iyo in dhammaan madaxda galmudug ay yimaadaan Muqdisho si loo sameeyo wada hadal lagu xalinayo khilaafaadka ka dhaxeeya fulinta heshiiskii Djibouti. sababtaas ayay ahayd sababtii aan ku nimaday magaalada Muqdisho. sidaa darteed xildhibaanku wuxuu sharci noqonayaa xildhibaan waxa uu sharci noqonayaa marka xildhibaannimada loo soo xulo qaab sharci ah isla markaana loo dhaariyo xubinnimada baarlamanka. haddaba macquul ma aha in dad laga soo xulay bulshada deegaanka ay matalaan xildhibaanada sharafta leh ee galmudug in xildhibaanada galmudug waa 89 mana jiro xildhibaano kale oo sharciyada haysta ee matala galmudug balse waxaa ka socda dhuusamareeb waxay ila muuqataa duufaano la rabo in lagu baabi'iyo dastuurka galmudug oo weliba horay uu ugu tuntay madaxweyne xeef. galmudug waxay ku shaqaynaysaa sharci iyo dastuur ay soo yegleeleen dadkii galmudug waxaa ka dhistay. sidaa darteed waxaan halkan ka caddaynayaa in xilka aan u hayo ummadda reer galmudug ee aanan u hayn koox diimeed ama shakhsiyad dano gaar ah leh. haddaba sida sharciga ah waxaa xilka iga qaadi kara cidda i dooratay oo ah xildhibaanada 89 ah ee galmudug. wixii intaasi ka duwanna ee sheeganaya magaca xildhibaannimo ee galmudug waa wax kama jiraan iyo shakhsiyaad iyagu aan matelin baarlamanka dowlad goboleedka galmudug. sidaa darteed sharciyad looma marin xildhibaanana mooshin ma ayna keenin xildhibaanana uma aqoonsanin. waxaad ogtihiin in hadda ka hor aan ka hadalnay meediyaha oo aan sheegnay in xildhibaanada reer galmudug aan lagu soo xulin sharciyad aan lagu soo xulin aanana dadka reer galmudug aanay heshiis ku ahayn. dastuurka reer galmudug oo dhan heshiis ku ah. xildhibaanadii galmudug ee 89 ahaana beelaha dega galmudug ayaa heshiis ku ah. laakiin qolada tan ma aha xildhibaano umana aqoonsani anigoo ah guddoomiye baarlamanka dowlad goboleedka galmudug ayaguna ima dooran ayaguna maartay xildhibaano ma aha sharciyanna kuma joogaan mana la dhaarin meel lagu dhaariyana ma arkin meel lagu soo xulay oo sharciyana ma jirto. sidaa darteed ma aqoonsani sharcina looma marin wax mooshin la yiraahdo iyo wax xilka iga qaadi karana ma jiraan. wabillahi tawfiiq aad iyo aad u mahadsantiin. laakiin hadda ay yiraahdeen cadaab dhuusmareeb maanta ku shireen waxaan sheegay in xilki ka qaadeen adiga maxay ku dambeyn doontaa baa isleedahay arrintan? runtii waxa ay ku dambeynayso waa la yaqaanaa waa fawdana waa iska dhamaanaysaa sidii kuwa hore oo kale way iska dhamaanaysaa. xildhibaan ayaa xil dadka ka qaadi kara cidda uu doorto ka qaadi karaa. madaxda galmudug oo dhan waxaa ka qaadi kara xilka ay hayaan xildhibaanadii 89 xildhibaan ayaa ka qaadi kara doorana kara cidday rabaan. ma aha in oo dad shacab inta loo waco la yiraahdo xilaa laydinka qaadaa. xildhibaanada reer galmudugna dhammaantood waxaa uu baaqayaa 89 xildhibaan inay isugu tagaan magaalada Cadaado oo ah xaruntii dowlad goboleedka galmudug ee loogu talagalay in ay ku shiraan baarlamanka dowlad goboleedka galmudug. madaxweynaha dabcan dowlad goboleedka ayuu qayb ka ahaa shiray Kismaayo waxayna qaateen go'aan midaysan oo ah inay xiriir ku jireen dowladda Soomaaliya. kadibna madaxweyne ku-xigeenkii adiguba waxaad si wada jira uga soo wajiisatay arrintaas. marka tan qayb ma ka tahay
hadda maaragtay xilka qaadistan ay sameeyeen xildhibaanada bas xiriir ma leed runtii aniga inay qayb ka tahay inayna ka ahayn aniga waxba kalama socdo runtii waxaan ka hadlayna waxa weeye sharciyad waaye dowlad goboleedna sideeda haddaa maqasho waxay hoos tagtaa dowladda federaalka ah annaga taasaan ognahay waxaana la rabaa in shacabka soomaaliya loo dhimriyo si ay maaragtay ay uga baxaan dhibaatooyinka runtii heesta taasna waxaa lagu gaari karaa in aan iska hormeedka aada loo sii ziyaadin waxaa hadda noo muuqanaysa in heshiiskii hadda dhamaystirka ahaa lagu heshiiyey aan ku heshiinay madaxweyne xeef iyo ahlu sunnana ay goobjoog ka ahaayeen aan ku heshiinay ee u baahnaa in la saxiixo in hadda la burburiyey oo la jebiyey waxaa kaleeto arkaynaa in la doonayo in la jebiyo shirkii jabuuti qodobadii ka soo baxay oo 14 ahaa in ayagana ay meesha ka muuqanayso in la rabo in ayadana la jebiyo aad iyo aadaan uga xunahay waana in loo daneeyo shacabka waana in loo tanaasulo in mar walba fowdo la sameeyahay sax ma aha mana ogolin waxaan ogolnahay shacabka reer galmudug wax kasta oo ay raalli yihiin waxay u baahan yihiin cadaalad waxayna u baahan yihiin cadaalad in lagu hogaamiyo hadda xildhibaanadan maanta sheegaya inay xilka ka qaadeen waxaad leedahay maaha xildhibaano ka tirsan xildhibaano dowlad goboleedka galmudug ka tirsan maaha oo aniga aan aqoonsanahay ma aha liiskooda ma hayo sharciyadooda ma hayo mana aqoonsanin maamulka intee laga haystaa mar walba waa isaga khilaafka iyo iska qabsiga dhexdooda jira runtii waa arrin oo runtii meesha imaan kara maamulka reer galmudug sidaa ogtihiin waa maamul aan garab badan la siinin muddooyinkii lasoo dhaafay runtii madaxda waa la dhihi karaa qayb ayay ka tahay maaragtay in shacabka mar walba dushooda lagu diriro arrinkaasna sax ma aha waa in loo heliyo shacabka waa in tanaasulaad loo muujiyo wax walba in lala ordo oo la sameeyo sax ma aha dastuurkii dowlad goboleedka galmudug oo reer galmudug oo dhan ay heshiiska ku ahaayeen ayaa galmudug yaalla oo dowlad goboleedka dhan dadka dhan ay heshiis ku ahaayeen in dastuur kaleeto inta gacmaha lagu soo sameeyo dhalinyarana la soo shiriyo waa la ansixiyo la yidhaahdo sax ma aha waxaa sharcina ma noqonayso gudoomiye waxaa rabaa inaan ku weydiiyo galmudug looma dhisin in maalin walba idinka madaxdii ah idinla xaliyo waxaa loo dhisina dadka iyo deegaanka ugu adeegtaan haddaad idinku heshiin weydeen oo maalin walba is haysataan ma la waayo garasho ah inaad qofi tanaasulo oo galmudug ka baxo si dadkaas loogu adeego aniga waxaanba ku talin lahaa galmudug madaxda ka wareegto haddii ay dad wanaagsan soo xulanayaan maxaa jira dadka hadda madaxda ka ah ayagaa soo xushay oo soo saaray uma ayna fiirsan runtii iskamay fiirin hadday iska fiirin lahaayeen dad wanaagsan ay soo xulan lahaayeen marka dadka dushooda in lagu diriro arrinkaas aniga ma waafaqsani haddii naloo arko in galmudug la baabi'inayana inaan ka tagno waa waajib saas xalku waxa uu ku jiraa haddii xal loo helo xalku waxa uu ku jiraa in reer galmudug dadka dega ee shalay dastuurka qortay ee ergadii 800 iyo tirada badan lahaa ee ay soo xuleen oo ay dastuurka ay samaysteen iyo heshiiska ay gaareen in dadkaas lagu maamulo waxa iyaga ay leeyihiinna dhexdooda la dhigo ee aan idijaabka aanay ku qaadan marka adiga madaxweynahaaga iyo madaxweyne ku-xigeenkaba bulshadan daashay diyaar u tihiin soo maha xal oo aragta inaad u banaysaan runtii shacabka reer galmudug ayay ka go'daa taas shacabka reer galmudug ayagaa yaqaana cidda wax u dhibaysa iyo cidda maarata u wanaagsan ayagaa kala yaqaana.